محوها جبلان ما دام ما أنت عن جوجنه السجع محوها وكويشيكس ما أنت مركز سيد الله شاري ومعني تسوين ورر جبلان يتاريخ ذي الديمقراطية ده يهرسعد كصومالي أنا مجع كله محوها مالي كالأوين أي تهاي وعلنك جمهورية الصومالية مالي تيسي أي تهاي والله مناسبات أو إسكسو آدي أو آدي آد وقرح بدن وأن لا يهي دمان دك الصومالية جودهان همبليو دك رير جبلان وحن لا أيقون همبليو أنت كدي ولا ريال صوماليا قد سعود بير أو كسابسن قد سعود بير أو كسابسن دولة بسد أي صومرتي ما أنت على جودة التاريخي رجي محنكورة دولة بسد كسوق قيب قاطي أو صدق سنة كدوات كي محوها وضع بير لصومري كود الجري أو كعها مهمك أي محنكورة ذاي كهذلي مركا قضاء ضمبا إيميشا لغسو بالله بإنهم كنا نقول مرة لكن صعد كاس دولة لماذا مروى البميدة أصلوا هاي اسفهم ما أصلوا هاي اسفهم كنا وحو كإيماناي وذا هذلوا كإيماناي اسقدرينوا كإيماناي اسورالسي إيا محان كراو كإيماناي وحقق أنه أهاجر تددك الصوماليات سيدا مدانا محوى عبد الرحمن عبد الشكرانكا وكشيغا أيغو اسدريرسن حتى دقال كودي إنو حد لها dagaalkeenu ma gaarin dagaalka meelo badan oo Afrika kamid uu gaaray oo dadka in la jarjaro xubnahooda iyo in la gubo iyo in la balaayeeyo ahayd maanan gaarin wali Soomaalinimada iyo dhaqanka iyo xeerka iyo dhalashada iyo waxa iyo qadarin weynay dadkeena ku dhaxlahaayeen mar walba waxay ahayday mid aan ku soo caano maalnay waana mid maanta laga hadlay in ay naga ciladaysan tahay oo ay cilad naga yeelatay waxaan rabaa marka wadadaas aan rabaa in loo noqdo باقي هالكان لقى جيدي هايدي لو فدي مايو هدي عدي مسؤولية للصاري اللي بيقولوا جاي مدعونا جمهورية الفدرالية الصومالية واجبات كيس الدستورية وحددينهن واجبات كيس الدستورية وحددينهن واجبات آت وبلارن ودير ومحان كورا دولة دمدا مالها لكن مهمة جارة أيها الله سوق قاضي انتاس واجب ومدعونا اللي بيقولوا هو الرئيس إنه جاي إلى عليها دستورك دستورك إنه إلاليه والله واحد قدني والله وحي ظروفه النجار كمرر بدن وحي كينيا إن خلطات دعان خلطات إن دعان اسكو عيبين مين اسكو آذن مين لكن خلطات كإن لا اسك قبته لا قصوا النقضه لا اسور صدف ورماش اسمه وضد النجار مجرتين وضد أول نقولنا اللي يراه أول استجيست أيك بعد محان اللي اسكو دقيسنا مركل اللي اسلا فريسو اللي اسلا هذا اللي استجيس كراي سكر اللي اسكو مدقي سكر اللي اسكو ما نمقل كرو مركل اسفهم سياسة ذات oo loo wada jiray mar walba wuxuu ahay cunsurka aan ku soo caanamaali jiray oo aan muxuu ahay soo isticmaali jirnay asagii marka waxaan leenahay hal loo noqdo waxyaabaha muharramaadka ah oo dhinacooda in la fiiriyo aanay ahayn waxa kamid ah mandate-kii ay dawladda shacabka Soomaaliyeed dawladda siiyeen hadii uu dhamaaday meelahan luuqyada ahaan wax ka daydaya xaraan waay wax extension la yiraa oo dalkan ka dhacaya ma jiro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa la siiyay mandate 4 sano ah mandate-kiisa 4 sano ahay 7 February 2021 uu ku eg yahay madaxweyne waqti aad haysataa wali fursad aad haysataa wali 15 bilood aad haysataa wali waxbaad sameyn kartaa wali dadka Soomaaliyeed oo dhammaa waxaas weyn yaa raalli ka wada ah oo inay ku kaalmeeyaan diyaar u ah muddadaas aan sheegnay ka hor xilka laguma haysto horena laguma haysanin go'aan gaarista iyo mas'uuliyadda aday ku saaran tahay laakiin qofna mas'uuliyadda mustaqbalkiisa iyo magaciisa iyo heybadiisa iyo dawlad iyo yaani dadnimadiisa iyo amnigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo midda guud inta qof gaar ma saarna qaanuun iyo maxaa loo sameeyay dastuurka maxaa loo sameeyay hay'adaha dawladda ee kala duwan ha ismiisaamaan ha is ilaaliyaan la yiri maxaa loo sameeyay waxa loo sameeyay
inaan hal qof gacanta inta garab indhaha la isku qabsado gacanta garabka laga saarto inta la iska daba kaco qar iyo doon inaanan kaala dhicin daraadeeda loo sameeyay waxaan leenahay madaxweyne caqliga ha soo noqdo talada ha soo noqoto ummadda Soomaaliyeed inay kula shaqeyso way soo cadaysay inay raali ka tahay horay kula soo shaqeysay maalintii lagu doortay ilaa maanta welina waa talaan leenahay ra'yiyaan qabnaa marka aanan waxba ogeyn oo dadku aanay waxba ogeyn waliba waxa laga yaabaa inay jadda shakariyaan waxyaabo qaarkood aan sax ahayn ay ku dhawaaqaan ku hadlaan laakiin marka dawladdu ay wax u sheegto dadka waxa jira ay u sheegto oo ay la socodsiiso sida xaalka iyo duruufuhu ay yihiin dadku ma qaldamayaan tala sax ah ay diibayaan madaxweynuhu dadka ha la fariisto dadka ha dhageysto intaasaan soo dhahaynay kama daalayno inaan dhahno wadar ogol waa waxa kaliya ee lagu marayo meeshii qaanuunka noo qorayo oo dastuurku qorayo oo qawaaniin kale qoraysa ay jirto ha lagu dhaqmo meeshii mugdi ka jira ama waxyaabaha naga dhimana dastuurku waa qabyo loo yiri ay ka mid tahay qabyada naga ana aan ka wada hadalno ummadda Soomaaliyeed ha ka wada hadasho dawladdu gogol ha fidiso la isku warsado wadar ogolna ha la helo si hore loogu socdo laakiin meelo yar yar yaan lagu laabanin inta aan hadlaynana wax kala kamaanaan hadli jirin inta un baan ka war waqtiga waa dhamaaday waa 4 sano sideedaba ayadoo iska yarayday ya haddana intii badan ay baxday maalin maalmaha kamida oo dawladani ay ka shaqeysay ma jirto in maxaan ku raadayay si qurux badan oo xaraga leh oo wanaagsan oo muxuu ahaay talada dalka hadii dib loo doortana sidaan oo kale mar labaad la doortana aan muxuu ahaay intaan u nimaado aan u sacbino aan u duceyno oo aan muxuu u hambaliyeyno haddii mid kale la doorto oo Soomaali ana sidoo kale asiin aan yeelan laakiin lagama leexan karo wadadaas wada laga leexan karo oo meel kale ka furan maaha waxaas marka maxaa ka jahawareer siyaasadeed abuur marka waa maxay bari lama yaqaan wax dhacayo dadku marka in ay maxaan ku raadaan wax waa gooni jahawareerka siyaasadeed cawaaqib xumo leeyahay dadka urha loo bixiyo meesha loo socdo ha loo sheego kii ra'yi ka qaba ra'yi ha ku darsado kii kale ha ku qancay gacanta intuu taago u sacbiyo muxuu ahaay ha ku raaxaysto haddaba kaco oo kalsooni badan ha helo laakiin inta maya xagga maya waa laga hadlay koonfur galbeed wixii ka dhacay waa laga hadlay ilaa maanta lagama jawaabin jawaab sax ah lagama jawaabin madaxweynaha la doortay ee koonfur galbeed ee hadda jooga waa soo dhamaatay waxaan leenahay madaxweyne laba waajib ku saaran labadaas waajib iska ilaali mid waa dadkaaga reer koonfur galbeed inaad nabadayso oo aad dib u heshiisiin u samayso oo kuwa wax sheeganaya aad madaxa gacanta ka saarto kuwa xiran oo siyaasad wax dad u xirnaadaan xurriyadooda lagu qaado siyaasadda u xun siyaasadda dambi ma aha qofka ra'yigiisa inuu cabiro jidka yimaado dambi ma aha inuu idaacadda tago hadlo dambi ma aha meel inay isugu yimaadeen dadka si loo ilaaliyo dastuurkaaba siiyo yiri isku imaada oo maxaan ku raatay dambi ma aha dadaa u xirxiran dadaa u dhintay dadaa u dhaawacan dadaa siyaasad daraadeed loo dilay waxaas waa wax aad iyo aad u foolxumo laakiin maxaa wax lagu farxaa ummadda Soomaaliyeed kartida iyo capacity-ga iyo dulqaadka ay yeelatay kuwa la dilay ayaga kabooda godan la garanay meel ku yaalo lagu daadiyay waaliday leeyihiin daday leeyihiin maxaan ku yiraahdaa aabayaal iyo walaalo iyo wiil hooyo dhashay ahaayeen wax la aqbali karo ma ahayn haddana wax ka sii daranayaan imaamin dadku waa liqeen kuwa jidku soo baxay koonfur galbeed waxaan la socdo macquul maaha magaalada Baydhabo barrac xabada lagu laay qaarna waa la xiray dadku waa iswarsadeen war waxaan maxay ahaayeen war waxaan waa meel qatar waxaan ma fiicno waa haye meeshaan meel ka sixun yaanan aadine bal aan meeshaan joogno inta wixii laga hadlay maanta oo dhan Jubbaland wixii la soo marsiiyay iyo wixii war dawladdan iyo nidaamka baladkan ka jiro maanta anu ma garanayo maanta la joogo duruufaha jiro mid wax sidaa ka fiican oo la sameey karo wax badan waa ka dhiman yihiin wax badan oo horumar way u baahan tahay laakiin maanta waxaan qabaa wixii la sameyn karay wixii ugu fiicnaa in la sameeyay wala
marka waxaan leenahay madaxweynaha la doortay mudane axmed asagana sidoo kale waxaan kula dardaarmaynaa dadkaas walaalaha ee tabashada qabo waxay tabashada ka qabaan waa tabasho siyaasadeed waaye tabasho kale ma ahan in uu xooggiisa iyo caqligiisa isugu geeyo ilaa ya hadda sida uu dulqaadka u muujiyeyna uu usii muujiyo lana jeriyo waxaan sidoo kale aad iyo aad u ammaanayaa odayaasha dhaqanka ilaa maalintii ku mashquulsan ee weli ku mashquulsan ee shalay noo yimida ee yidhi waa ku mashquulsannahay waa jirnaa oo aan fariinta ugu farray ayaguna runtii door fiican ay qaateen waa ku ammaanaya waa ku waxaynaya laakiin jubbaland waa ka soo baxday wixii waa ka soo gudubtay gudoomiye xamse meeshaan si tafaasiil oo noogu sheegay nidaamka la maray sharciyad waaye intaasaaba sharcigoo la maray ah wax badanoo annaga xataa naga mugdi ahay maanta waa naloo iftiimiyey oo walaahow iyo muxuu ahay buuq la geliyey iyo beenna looga sheegay intaba maanta waa naloo iftiimiyey waxayna ahayd wax saxa waxaan rabaa marka maanta maxaa jira galmudug xaaladda maanta ay ku sugan tahay mid lagu farxo ma ahan guddiga la tilmaamay ee maxaanku idhahdaa dawladdu ay samaysay waa kii maanta laga hadlayay inta uu xamse halkan ka sheegay ee dawlad goboleedkan saxda ku ah ee dastuurka federaalka saxda ku ah intaas unbaa galmudugna sax ku ah wax ka duwan ma jiraan dawladda wiilal yaryaro xafiisyadeeda ka shaqo civil servant ah waa violation ayada lafsadeeda xeerku wuxuu qorayaa shaqaalaha rayidka ah siyaasadda active kama noqon karaan xeera qawaaniina qoraysa taalo oo jamhuuriyadda ay leedahay wiilal shaqaalaha rayidka dawladda ah agaasimayaal ah muxuu shaqaale kale ah ayaa guddigii loo magacaabay oo dawladdu ay waxaynaysaa dawladdu ma aha kaliya inay sharci si yani meeshii ugu hooseysa sharciga ku tumanaysa ahlu sunna wal jamaa warqad cad ka soo saartay inaanay ku qanacsanayn murashaxiintii tartanka inay u gasho rabay meesha galmudug la yidhaaho warqad kale ka soo saaray waxaas waa violation macquul ma aha war ka joojiyaan leenahay dawladdu waddadaas ha ka joogto wadda saxa ma ahan war dadka fursadda nidaamka federaalka dhan maxaa loo sameeyey nidaamka federaalka xukunka dadka in loo dhaweeyey ee nidaamka federaalka xukunka dadka ugu taga inay dawladda dhex daba kacdo oo ay ka daba garguuratay meesheeda ugu tagta ma ahan institutionka dawladnimada checks and balances ka dhumay ha soo noqdo shalay maana daraad hanti dhowraha guud ee qaranka oo hay'ada ah ayaa soo saartay in lacag maqan tahay maxaa asiga la dib loo mareejiyey inta ka hadal idaacadda inta sheekan sheeg muxuu asaas dheh fool xumo waay maxaa ka sii horreeyey guddigii korjoogtayta baarlamaanka oo maaliyadda markay yiraahdeen 42 milyan oo dollar maqan waana tanaaxeer ilaaliyaha guud xafiiskiisa soo cadeeyay dokumentigaanay ku qoran tahay meesha ku maqan tahay maxaa la yiri guddiga dadka madaxda laga raacday socdaal dadka maxaa waxay inta wax sheegaysaa meeshii ku danto waa dhamaatay dawladaha marka maanta dhahayo muxuu ahaayay transparency jiro wanaaga jiro oo horumar maxaan ku raay la gaaray fidnay ka talinayaan leenahay dawladaha saas ka shaqeynayo lacagta ay sheegayaan waa mid Soomaaliya roojinaysa mid Soomaaliya wax u talaysanaa tii cashuurta dadka ku qarriban oo jidadka ka xiran yihiin oo maxaan ku raay loo taagay jinka laga aruuriyay maqan oo meel lagu sheegin tii caalamku keenay hanti dhowriyeeda accounts dibadda مشروع كسماية كسعودة إن الله ضمينا وحد دليل وحمانته كسر بحي كسماية أو كجرا دليل إن وح لو وذا الدنيا ضدك الدجان أي وذليين إن أنا أهين ضدك كبر الحوسني ضدك الدجان كوذله ولا لي الواتا سوي عضاتي ضدك الدجان إن أنا لا هدي ضدك الدجان كوذليه ضدك الدجان كدجان وضد آدي أدو قيمة بدن وضد رقم له وضد محنكرة حرر له oo isgaranayo oo isla soo noolaa ebidkood inay isla noolaadaan rajo ka qabo waa wiil iyo abti waa muxuu ahay inan iyo sododiis dad xumaan u sameeysan meesha ma joogaan
laakiin wadda aan habboonayn markii dadka lagu leexiyo waxaa ka imaanaya maanta marka meelaan joognaa ayaduna aan hadda inaan ka tashanay u baahan tahay waxaan leenahay marka maanta wax badan aan qaban karnay ayaa naga baxsaday iyo waqti aan ku qaban karnay intaba laakiin weli meelaan joognaa wax badan kale aan qaban karno intaba weli aan dagaal iyo colaad aanay dhicin fursadaa noo furan inaan wax badan si dhaqsi aan u hagaaji karno dadka deegaanka iyo dadka mas-uuliyiinta meesha jooga waxaan ugu baaqayaa in laga fogaado in colaadu dib ugu soo noqoto dadka iyo deegaanka in aanan xabad la isticmaalin ee la isticmaalo caqliga iyo wadatashiga iyo isqadarinta ha laga fogaado wax kasta oo keeni kara colaadi inay ku soo noqoto deegaankaas dowladda Soomaaliya waxay u taagan tahay in aanay deegaankaasi colaad ku soo noqonin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego waxaan si darro ah kuwa aan ka hadlayay ee na dayacay shalay si غير mas'uulnimo ah u sahladay badeen inay baxdo ama dana gaar ka qaatay ayaa maanta jaakadaha u soo xirtay haddana xukunka dalka inay qabtaan qofka Soomaali oo caqli leh oo dadnimo ay ku jirtaa waa garan kara waxa ka dhalan kara dadka noocaas mas'uuliyadooda iyo garashadooda noocaas ay tahay markay talada dalka qabtaan waxay u horseedi karaan dalkan dadka Soomaaliyeed ha foojignaadaan indhooda kor nin nacayb ma aha nin jeclaysi ma aha laakiin waxaan leenahay dadka mas'uuliyadda loo dhiibaayo oo dalka iyo danihiisa lagu aaminayo ha laga fiirsado gadaashooda iyo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii horena dib ha loo eego malafyadoodii hore dib ha loo eego meesha ay ka yimideen waxa ay soo mareen iyo mas'uuliyadda markii loo dhiibay meesha ay dhigeen dib ha loo eego